aad badartu mahadsan tahay suldaan waana kugu ixtiraamaya gooni goosadkaaga iyo mabaadida aad ka aaminsan tahay walaashayna meelo fara badan bay marisa dadkuna waxa wacan waxyaalaha dhabta waaqiciga inay ka wada hadlaan hadda adigu intaad soo fikerto wixii kula qurux badnaada aad la timaado oo aad tahdo waxa aniga la qurux badnaaday baa sax ah in la ixtiraamo oo la meel mariyaa waajib ah horta waa khalad ama soo arko kow waxyaalaha laga wada hadlaya waxaa ka mid ah aan leeyahay inuu ka wada hadallo ka heshiino Somalilandnimada laftigeeda heshiis kuma nihin magac carabtiisa heshiis ku ahayn haddana ma aha ilaa Ingiriiska banan heshiis ku ahayn waa qodobka labaad dadka Soomaalida markii la qabsaday ee lagu soo duulay dad Soomaaliyeed oo dhulkoodii degan oo la qabsaday bay ahaayeen waxaanan garanayn xilliga Ingiriis mandate-ka inuu dhibanay inagu iyo Talyaani oo ku heshiinay halka inoo xariiqaan inay sharci tahay ma aha meel sukan laga hadlo meesha Ingiriisku xariiqda inoo mariyo ama Talyaanigu xariiqda inoo mariyo xilliga inagu aynu ku heshiinay inay sharci tahay oo lama taabtaan tahay anigu horta garan maayo qof soo sheegi karana ma jiro marka inagu leeyahay waa Soomaalida oo dhan ma hareed waqooyi kaliya waa qodobka labaad dad la qabsaday baynu ahay haddii cid ina qabsatay ama waddankan xukuntay oo ka talisay waxa ay sheegtay sharci ay tahay lama taabtaan ah xasan sheekh baa ugu dambeeyay wuxuu aaminsan yahay lama taabtaan ah محمد سياد برا لما تابتانا شيخ شريف با لما تابتانا وحو امسنا عبد الله يوسف لما تابتانا نقولنا يا عبد الرشيد با لما تابتانا نقولنا maaha in aynu dhalanteed intaynu runmoodno aamino oo ku hadalno khalad baan arkaa waa xaaraan juqraafi ahaan baynu isku raacnay inagu deegaanka laakiin mabaadi ahaan waxaad aaminsantahay isku bayna raacin juqraafi ahaan waqooyi ahaan aynu wada degannahay reer waqooyina waynu kula soconnaa laakiin mabaadi ahaan waxaad aaminsan tahay wax wada hindisi kartaa waad aamini kartaa hadday khasab noqoto waxaad hindista inay sharci noqdaan anna waxaa khasab noqonaysa waxaad hindiso inay sharci noqdaan aad ugu ixtiraamto adna marka waxa weeye horta koowaad laba dal baynu ahayn laba dowladood baynu ahayn xaggaynu dowladda ku noqonnay goormaynu intaynu meel fadhiisanay dowlad dhisannay inagu oo ku heshiinay inaynu dowlad dhisano dadka in la khaldan ma aha muxuu wasiirkii warfaafinta jarmalku waa lagu celceliyaa beenta lagu celceliyaa ilaa dadka dhagoodu ay run u qaataan dowlad waxaan u aqaanaa anigu dadku leeyahay wax dadku intay meel fadhiistaan ay soo dhisteen iyagu oo ku heshiiyeen oo isku afgarteen kabacdina ay dadka ehelka waa ama deegaanka la ama dariska la ay ula tagaan oo ula yimaadaan laakiin Ingiriis baa bari intaa qabsaday intaana Talyaani baa bariga qabsaday labadaba way ka tageen markay ka tageen maxay ka tageen dad Soomaaliyeed bay ka tageen dadka Soomaaliyeed maxay samaysteen dowlad dhexe ay ku midaysan yihiin bay samaysteen taasaa dowlad ah oo dadku samaystay oo dadka ka timi waa qodob haddii ay tahay Ingiriiskii ama Talyaanigii baa koonfur dowlad u dhisay waxba ma dhisin waa been waxba kama jirin waan idin qabsaday waan idinka tegay dalkii inuu tashaday kana wuxuu yidhi waan idin qabsaday waan idinka tegay haddaad gaar u tashanaysaa noo tashada haddaad dadkiinnii markii hore aanu idin kala goosanay raacasaana raaca dadkeenni baynu raacna taas waa qodob wax la yidhahda laba dowladood oo isu tegay 60kii ma jiraan haddaynan ku celcelinayn haddana timi juqraafi ahaan dadkan degan gobollada waqooyi ee ku nool ee ilaahay ku abuuray waxaynu isku raacanno kow waa inaynu ka heshiino waxaa kaliya ina midayn karaan anigu waxaan aaminsana inay tahay Soomaalinimo shalayna ina midaysay markii koobaad aynu socnay aynu wax wadaagnay ahayd markii hore qabaal wada degan baynu hayno wehela maantana waxaa kaliya aynu wax ku wada yeelan karno ee ina midayn karaa haddaad doonto adigu madax ka noqo Soomaalinimo inay tahay baan anigu aaminsana markii taa aad u saldhigi weyday aad diiday baa waxaan damcay tan adigu aad dhoodhoobatay inaan kaala mid noqdo iyadana waa diiday waxaa tiri meesha calaamadda aan mariyey cidima xaggaan uma dhaafi karto cidina xaggaan uma dhaafi karto waxaan ugu qoran cid wax kama bedeli karto balad hadalka u fiirso adigoo reer ah oo reer Soomaaliyeed ah oo aan wada naado wixii daryaab aynu nahay oo waliba dadkeenu iska xigno waxyaalaha laga wada hadlayo ee aan leenahay aan ka heshiino aan ka wada hadalno muxuu yeelan carabi qabka iyagu alla kala foga oo qarsanaya bay kamid tahay kow ka taa dastuurkan qoran walaashay waxay tiri waa run wax la khaldan karaan wax walba abdada laga dhigi karaa haddii heshiis anigu aan galay aad soo qaadan doontid oo odhan doonto waxbaad ka dhisatay oo waxa anigu aan wax ka dhistay aanan ka noqon karin oo ay sharci yihiin lama taabtaan ah
waa inaad adna aqbasho oo ogolaataa lixdankii tii aad wax ka dhisatay ee xamar iyo koonfur ka dhisnayd ee soomaali ku midowday iyana waa lama taabtanoo sharci bay ahayd oo adaa shalay wax ka dhistay meel looma dhaafi kartid haddii aniga shirkii boorega aad ii soo qaadan doontid iyo kii burco anna kii muqdisho aan kugu soo qaadanaya kamana noqon kartid mana dhaafi kartid xaggana ma kartid xaggana ma kartid sababtoo ah maaha keligaa inaad wax taqaan maaha keligaa inaad fikirtid maaha keligaa inaad aqoon yahan tahay maaha inaad keligaa wax sheegi kartid dad baynu nahay wada soomaaliya wada nool ilaahay meesha ku wada abuuray nin baa inagu soo duulay ina qabsaday wanaag iyo hadiyad iyo dowladnimo iyo sharaf iyo diin midna inama wadin keliya wuxuu doonaya innagana inuu ina adoonsado khayraadkeena na gurto dadkeena diinka lagu faafiyo mucatabley inaga dhigo ilaahay subxaana watacaala fadligiisa ay ku ahaatay inuu inaga tago ina dhaafo cidna u nisbayn maya gaara markuu ina dhaafay inaanu isaga daba cararno nahno meeshuu berigii isaga ciidankiisu istaagaba inoo sharciya hadday tahay dee masaajidana kiniisada aanu bedelo macatabka aynu wada qaadanno kow jaamac hargeysa aynu ka bilowno wax kastoo ingiriiska aaminsanaa ama uu inoo wada ama inoola yimi hadday sax tahay oo aynu ku addimanno ku diimanno macatabkana ala soo baxno tusbaxana dhigno saasay macnaheedu noqonaysaa haddii kale cadow buu ahaa dalkan qabsaday ku habsaday markii dambena ilaahay ka kaxeeyey xaq waxaynu u leenahay aansaartuu ka tegey iyo midabadiisii iyo bidhaantiisii iyo raadkiisii baynu ka xaraaqnayno xaq u leenaha marka anigu waxaan leeyahay mar haddii dad aynu nahay ilaahay abuuray oo dalkan ku wada nool oo deris ah oo walaalo ah oo wadayaal oo wixii dad yahayba ah aynu nahay wax inagu aasaaskeeda aynu leenahay aynu kala sheeganno oo isugu goodinno oo xoqanno oo soo qaadanno laakiin cadowgii ina qabsaday ee ina baabi'iyey ee ina gumeeyey ee afrika oo dhan gumeeyey ee soomaaliya oo dhan adduunka oo dhan gumeeyey raadkiisii iyo meeshu maagga dhigay baa ii taalla oo aniga halkaas calaamad ii ah wax kastoo qof kaloo walaalkay sheegana waxba kama jiraan anigu waxaan arkay inay wax uga jeedan tahay wada salaamaya ku socda ninka la yidhaha cabdiqani waa dee kolley aarahadu way kala duwan tahay cid walba waa soo dhaweynaynaa anigu maanta waxoogaa maadaman meesha idiin furay waa kolley waxa weeye waan inta badan waa rayga waa dib dhiganayaa waa badhidarow soo dhowow dhidarow laakiin waxaan arrintan ka odhanayaa anigoon badinaynin laba kelmadood un baan ka odhanayaa waxaan runtii aad iyo aad u qabaa fikirka odhanaya somaliland dadka degeni waxay doonayaan oo kaleba waa heli doonaane bal horta ha la dhammeeyo wixii somaliland ka dhiman dhexdeeda fikraddaa waxaan u arkaa fikrad wanaagsan somaliland oo godo oo dal noqotana taasi way xoojinaysaa dowladnimadeeda iyo qarannimadeeda somaliland oo soomaaliyadiiba dib ugu noqotana way xoojinaysaa haddii la waayana labadaaba waxbay yeelaysaa kala qaybsanaantu marka in ummadda somaliland degeni ay midoobaan oo talada wada lahaadaan oo la dhammeeyo waxyaalaha lagu kala aragtida duwan yahay weliba labada qodob ee ugu macnaha weyn oo hadda imaka midna uu yahay kaas nimanka la yidhaahdo gobollada bariga degan ee uu cabdiqani ka mid yahay arrinkooda oo si wacan la isula eego iyo qodobka kale oo ah tan imaka doorashooyinka iyo wax la xiriiraba in la dhammeeyo xal loo helo wixii intaa ka dambeeyana somaliland oo midaysani ay dariiqa marka ay doonayso la qaadsiiyo runtii aad baan u soo dhaweynayaa laakiin haddaad doonaysaan inaad fahamtaan hadalka ninka la yidhahdo cabdiqani iyo meeshu ka imanayo wuxun baad isweydiisaan sababta odayaashii isimadii dhulbahante oo ilaa 13 garaad baan u malaynaya markii ugu dambeysay inay ahaayeen de imaka waa laga yaabay inay ka badan yihiin because intaa qaar cusub baa la sameeyaa oo qabaa'ilka soomaalida oo dhan way kordhiyeen madaxdii iyo dhaqanka 13 garaad jaamac garaad ismaaciil
mooyaane intii kale oo dhani meel somalilan ay gacanta ku haysa way ka caaganayeen waxaanan u arkaa anigu maqnaanshahoodu inay tahay tabasho weyn oo aad iyo aad u weyn oo ay ka qabaan somalilan marka in la isweydiiyo oo lagu soo dhowaado oo laga wada hadlo waxyaalaha keenay arrintaas waan soo dhoweynaya waxaanan qabaa inay somalilan wax tarayso ka wada hadalka arrintaas waxaa kaloo xaqiiqaa shacbi ahaan ummaddaasi in yar mooyaane aqlabiyadoodu markaa waxa weeye dee fagaarayaasha noocan oo kale la isugu yimaado dad somalilan ogol maaha marka in la isweydiiyo waa maxay sababtu oo dabadna marka sababtaa la helo meeshay ka imaanaysa arrinkaasi dee daawadeedii lala yimaado na waxaan u arkaa arrin lagama maarmaan ah iyo wada jirkooda iyo maaragtay dowladnimadooda waa tawfiiqda oo la hagaajiyo weeye marka hawsha si wacan bay u socotaa intaanan ku wareejin rashiid iyo dhidir waxaan rabay inaan runtii aad iyo aad ugu mahad celiyo ninkaan la yidhahdo cabdullaahi xuseen cali jeeri oo ah ninaan kula kulmay magaalada addis ababa oo aan gaadhay bishii 8aad ee sanadkan waana arrin fiican weeye runtii ilaahay xaggiisa laga jecel yahay marka bal rashiid oo ku soco dabadna dhidir baa kugu xigi doona ninka cabdiqani yiraaman dooniyo laba eray yiraahdo cabdiqani oo hadalkaa waan maqlayay si wanaagsan baad u hadashay somalilan qof ammaansan baan ahay anigu in aad somalilan wax kastood xaq u leediin inaad heshaan ood ka talisaan oo sinaba aydaan cidna ugu daba fadhiisan oo wax la wada leeyahay la helo horta waan rumaysanay kow waxaa kalan rumaysanay haddii la heli waayo wax la wada leeyahay oo lagu wada qanacsan yahay anigu waxaan rumaysanay wax sii waada ma noqdo waayo dal waxa dhista dad isku wada qanacsan baa dhista tan labaad waxaad ka hadashay ingiriiska wuxuu xarxariiqay waa runta ingiriiska baa xarxariiqay laakiin waxa yaala xaggiina ama xagga dadka midnimada aaminsan ama soomaaliya aaminsan ee somalilan xuduudda somalilan ay rumaysantahay inay leedahay ka soo horjeeda waxay yidhaahdaan ingiriis baa radiqiyo waxyaabo noocaas laakiin su-aal baan qabaa ah xuduudda kenya iyo soomaaliya u dhaxaysa maanta ingiriis baa radiiqay ka maanta ku taalla buuhoodle iyo etoobiya ingiriis baa radiiqay ka somalilan iyo soomaaliyana ingiriis baa radiiqay oo kulligood gaal dabacad baa dhigay haddaba sideed u ogoshahay xuduudihii qaar inaynu qirana inuu gumayste ahaa inaynu raacno sharciyadii u dhigay oo addoonsiga ahaa oo nan maandheedna u dhiiban raallina aynan ka ahay wax noo qaybina aynan odhan waa qoon su'aal khalad bay ahay xuduuddan kenya aad ka hadashay soomaalina ma aqoonsana dadka deggan ee kenyaanka ahina boqolkiiba 99.9 ma ogola mana aqoonsana ee waa lagu khasbay xoog baana lagu meelmariyey oo waynu ognahay etoobiyana dadka ku noolay boqolkiiba 99 mana ogola mana sharciyeynayaan inay xoog ku andhameeyo inay xoog ku maqan yihiin baynu ognahay yana ay og yihiin wakti badan iyo juhdi fara badan la geliyey dowladda soomaaliyeed ilaa 1960 maalintii calanka la qaatay ilaa maantana dastuurkeeda shakhsigu wuxuu aaminaya isaga u taalla dastuurkeeda waxaa ku qoran xuduud beenaad inay tahay kumana qanacsana mana ay qaadan mana aqoonsana marka dowladda soomaaliyeed laga hadlayo ma aqoonsana sababtoo ah aqoonsi waxaa la odhan karaa dastuurka soomaaliyeed waxaa ku qoran isu qandhamay dastuurkii lixdankii bay ku qornay maanta kuma qorno walaal aan ku dhameeyo kii 60kii iyo maanta midna kuma qornayn walaalle wax la yidhaha xuduud etoobiyaan xuduud beenaad bay odhan jireen kumana qorna walaal hadalka aan dhameeyo 5 soomaaliyeed bay ahayd
kaba kaale taas halkaa ka fahmaysa markaan kaala hadlo waa wadamo cadow ah diin iyo dhaqanna aynan wadaagin kuwaasi oo dad innaga inaga muda inta la gooyey khasab loogu daray raalli kamaad ahayn ama raalli kamaan ahayn haddaadan waxyeella kugu gaadhin ama awowgaa bay ku gaadhay ama adeerkaa bay ku gaadhay sidii loo soo dhicin lahaa loo soo celin lahaa innagu madan isku israel nahay mise dad kale israho sida kuwaas ogala bar loo tarayo nahay oo loo goynayo haddiise kuwa awood leynagaga muquuniyey innaga awooddeena kala wadda xaggee joogtaa maanta ciddas aynoo imanaysa innagu haddaynu waxaynu nahay isku raacno ee ina odhanaysa isma raaci kartaane